guriga maalmaha ka mid ah suuqa aaday suuqa bakaaraan ay wax ka dooni jiray asoo guriga joogay ugu dambeysay haddaan imidna waxa la ma joogo wiilkaas guriga waa tagay baxw dhar ku qaatay hooyadan Soomaaliyeed waxa ka maqan wiil ayada ay dhashay waliba arinta xanuunka badan waxay tahay wiilkeedii in subax uu iska dhaqaaqay inta dhar bac ku shubtay dibna loo ma arkin gudaha magaalada Muqdisho warar loo sheegay way jiraan laakiin say wax ku dhaceen maxay tahay sababta sheeka ama xogtiisa xitaa loo maqli waayay ku soo dhawaada qaybta kaliya iyo kaadamareenka isbitaalka kalkaal kaasoo diyaar idinku yihiin dhaqaatiir ku takhasusay daaweynta iyo qaliimada cudurrada ku dhaca kaliya iyo kaadamareenka iyagoo adeegsanaya qalab casri ah lana jaan qaadi kara dunida casriga waxay idin samayn doonaan dhammaan qaliimada xanuunada ku dhaca kaliya iyo kaadamareenka gudniin tolma la'aan daaweyn taranka ragga iyo qaliimadooda kalkaal hospital caafimaadkaagu waa mudnaanteena السلام الله عليكم صاحبي السود وهذا ومركز البرنامج بافنتا بعد جوب كومت سومالة الانتر أنا جو عبد العزيز ريلي إسكتر الانتا مقال كان وامد كانوا قرب استاجا جو بهان وحرجينا يا إن مركزي عاد نعود دونتو وعاد نقصو بير دونتو فلو سبسكرايب مقال كان أنا شارك دونتو سان هو يعاونه سودو هو مركز رمج عاود مثلا كان نقصو بقتي magacayga waxaa la yiraahdaa Shariif Xirsi Xalane هو الشريف ما أنتو حنوصو بقتي استوديو الانتر بافنتا انتهى نقصو بقتي waxaan ka soo booqday wadajir Madiino wadajir Madiina ka timid yaa ka maqan hooyo oo aad barnaamijka baafinta u timid waxay ka maqan wiil la yiraahdo Nuux Ali Siico wiilkaaga magac naanaysa ma lahaay maya intuu ku dhashay ku koray Madiino ma qasan jiro wiilkaaga hooyo hadda wuxuu uga dhumay macnaha 2004 20 sano ka hor waay xilligaas ma qasan u jiray 14 jiro 14 jiro waayahay wiilkaaga aabiis ma nool yahay waa nool yahay Soomaaliya ka qabiilkiis wiilkaaga mursado waay adigana abargeer see loo waay wiilkaaga hooyo guriga maalmaha ka mid ah suuqa aaday suuqa bakaaraan ay wax ka dooni jiray asoo guriga joogay ugu dambeysay haddaan imidna waxa la ma joogo wiilkaas guriga waa tagay baxw dhar ku qaatay waa iska dhaqaaqay wax khilaafa oo family kala dhaxeeyay ma jiray maya 20 sano muddo fog waa say u dhacday marka saas waaba dhacday say ku dhacday maxaan ka qaana haye ma la raadiyay marka wax badan aan baafi anigu aan qaybta meel walba waa gartay dadku maxay ku dhaheen marka wiilku iska baxay ileen waa la raadina waa la budugoba waa la hadlaa mugtahay maxaa lagu yiri wax sheegaba lama arag sida u baxay familka markay iswareysteenna waxa waaye qof oo dacwo uu qabo ama qof ay wax kala tabanayaan ma lahan maya wuu cunugu tahriib uu kala saan qiyaasay hadduu tahriib galay soo lacag uma baahnayn soo dad la socda lama baahnayn soo wax ma jiri lahayn kulli dadkii la socda xaafadda wiilala ka baxay laakiin uu raacin kale ma ogi hay wiilashaas ma la arkay marka maya hadda marka waxaa go'aansatay inaad baafin u samayso mar kale magaciisa nagu celi Nuux Ali Siico naanays ma lahaa maya waayahay cid kasta oo wiilkaaga aqoonsan karto amba taqaanay amba aad isleedahay xogtiisa waxay ka ogeed maxaa ka codsan lahayd inay haddii ogiyo meel ku ogyahay ay maaragtay ii soo sheegaan tishkan qaaday ka xunaa hooyo waa dareemi karnaa wiil aa dhashay oo 20 sano maalin uun iska baxay iska dhaqaaqa meel lagu ogeyn waa dhib badan tahay dul qaado waa la raadiyey laakiin soo maaha aniga raadsi dhorto kana raadsi oo meel walba dhigo biibista galsho la qaybtaas u dhiibo aniga raadsi ma qofka la raadsada laakiin ana meel walba ka raadsi haye laan qaybta warqadan geeyay maaragtay biibsida waka waa ka xunaa hooyo dad yaqiinay dad israaceen dad wax kuu sheegana ma lahan maya ana oo maqlay wiilashaas inuu raacayo wiilashaas iyo wiilku inay israaceen boosaaso mar laga sheegay kadibna wax sheega waa la waa haye intaasaan ogahay
wax kaloo intaa dheer oo maqasho ma jiraan maya maya waa gartay cid kasta oo wiilkaaga aqoonsan karto ama meel ku og hooyo oo muuqaalkan daawatay maxaa ka codsan lahayd cid walbo meel ku og ama maqasho warkiisa inay leefkan iga soo baafi anaa jeclaa oy kula soo xiriirsiyaan waa gartay teleefon lambar lagaa soo waca manuu sheegi kartaa lambarkayga haa ii sheeg lambarkaaga furaha 5 5 haye 93 93 48 48 9 hadda marka aabihiis iyo adiga iyo familka oo dhan waxaa go-aan gaarteen in la baadi goobas la ogtihiin baafinta adimaha daawad musa lagu sheegay may baafinta waa maqlay dhowr togan raadi meelaha ka dhigiston qadadka ka arkay marka hadda wiil ku yaqaano meesha yaqaan maartay soo wargalsho yiri oo wada ana aqaan meesha uu joogo haye sida lagu keenad marka lagu soo dhaweeyay waa yahay hooyooyinka carruurtooda ka maqan yahay waxa waaye inta badan waa kuwa u shaqeyna waaye waan rajeynaa hooy wiilkaaga in la helo dadka Soomaaliyeed ay ku caawiyaan wax kale oo xog aanba tilmaamo wiilkaaga ku aadan qof sida ayuu ahaa wiilkaaga waxa ahaa wiil dheer oo dhuuban oo ma dadka maareenka gudow xigaanka wiilkaas oo saasuu ahaa oo san dheer waa gartay waa mursadoon ahaa wiilkaaga adigana habigdiraa tahay maasha allah hooyo waxaan rajeynaa wiilkaaga in la helo marka qaar xog soo wacay dad baan kuu sheegayo ku dhahay wiilkaaga intuu ku xiran yahay manuu joogaa lacag soo dhiib anaga keenayno muuqaal iga tusiyana dhahda maahane yaa lagu sirin may waxaas maba arag weli may hadda markii muuqaalka la daayo alla markaa arkaan ay ku soo wacayaan dad dhib badanaa iska jiro may wax aniga warkaas ma gelayo dad fiicanna way jiraan biidnillahi alkariim xariirku ay xaggiina un bis waxaan rajeynaynaa biidnillahi alkariim in wiilkaaga hooy xog laga helo oo adigoo faraxsan la soo xiriirto waa mahadsantaha hooyo guud ahaan muuqaalka inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo ilaahu noo rumeeyo yoolka riyada rajada hadafka aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan maalintii marqaama jannatul firdaws intaan dib u kulmayno bye bye